السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jumwaarigo idin le cibaadaysan cindiga ku hay'adana buu igu calin ciyaarihi siyaasadda iyo hawlahan iyo waxaan magaaladii berbera ka socday guud ahaan gobolkii saaxilba fara kala baxbaan islaha laakiin dima waxaan arkayo ma ka aamusi karayo runtii ilaa xalay ilaa shalay ilaa markii natiijada lagu dhawaaqay golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka galbeedkii saaxil waxba laga waayay midba laga waayay intaasoo dhan waxaan dadaalo ugu jiray in aan yacni war odayaasha wayna dageena bal aynu dhallinyarta iyo haweenku bal ha tashadaano sidii aan da berri karbaashka ugu weyn iyagoo ugu dhicin bal horta ha u tashadaan arrinkaasi meelo fara badan buu ila galay meelaha waxa ka mid ah horta waxaan ogaaday xaggan galbeedka in uu ku badan yahay dilaal iyo malaal iyo kabaqaad miidhan inay ku badan yihiin oo hadba ay yacni iminka tusaale ahaan galbeedka saaxil xataa hal suldaan ma leh sandalad wax la yidhaahdaba ma leh halka bariga saaxil uu ka leeyahay 2 sandaladood mise waaba 3 horta 2 waa hubaa hadda ma garad 2 waa hubaa kastaxadna mala waa ka guude ma garanayo galbeed oo dhan wuxuu ku qancay inuu gabigiisa chief caaqil oo qaato taasi de maba xuma xitaa haddii chief caaqilka la qaatay ila wuxuu waa iska teetale oo wax qabanayo laakiinse dee wax laalayo wax dhaqaaqoo socdaa ma jirto galbeedkuna suldaan wuxuu ka dhigtaa hadba wasiirka yimaada ama madaxtooyada ama meelahaasaa u suldaano abaan isiri chief caaqilku isaga ka dhaqaale badan 2 sandaladood iyo waxaan oo dhan la isku geenayo laakiin waa shakhsiyadiisa waa keligii halka barigu salaadiintiisu da ay wax qabtaan oo ay bulshadooda mideeyaan oo ay bulshadooda wax u qabtaan waxa jira xiriyo aad moodo yacni dadka sida xoolaha in loogu xareeyay xiriyo aad moodo dadka sida xoolaha in loogu xareeyay oo group ah hadday tahay Facebook group hadday tahay WhatsApp group hadday tahay waxyaabo noocaas ah oo niman siyaasiyiin ay dabada ku hayaan dabada ka taagan yihiin ciyaal yaryaro kabaqaad ahna ay uga shaqeeyaan oo ay meesha u dhex joogaan runtii waa wax aad looga xishoodo yacni ummaddan in caqligooda lagu ciyaaro in mustaqbalkooda lagu ciyaaro in sidii la doono laga yeelo in lagu dawirsado madaxtooyada iyo aqalkan looga taliyo gobolka iyo ka degmada iyo in waxa lagu dawirsado wasuurada iyo in waxa lagu dawirsado bulshadan masiirkood horta runtii wax dee la aqbali karayo ma aha wax la aqbali karayo ma aha runtii waanu soo socdaa shirkii dhalinyarada iyo haweenka ee aan ku baaqnay ay ka tashiga ahaa uu soo socdaa insha Allah taala imika waxa jirta madal yaroo oo kan yari uu dafdafle ka yahay oo uu kabaqaad u yahay rag siyaasiyiin runtii ma jeclaysana inaan magacaabo cidna laakiin sakan isaga ay kululaystay isagaana yacni afaarayga soo galay kan yari waa akbar kabaqaadka ugu weyn isaga iyo waxa la qeyrkaa loo baahan yahay horta in galbeedka laga sifeeyo haddii la doonayo reer galbeed inuu tashado inuu ismuujiyo inuu magaaladiisa iyo gobolkiisa badda ka dhex muuqdo oo wax ka dhex noqdo laakiinse haddii ay dhacdo kabaqaad ka soo miidhani intuu shilimaad ka soo qaato ma garanaysaa xagga sare inuu deetana dadkii ku karbaasho dadkii soo xoolaha uu meel ku soo urursado oo uu kalba wuxuu doono ku akhriyo yacni isagu uu u noqdo kii wuxuu sheegayay marka waxaan leeyahay yarkan kabaqaadka ah iyo inta la nooca ah iyadoo galbeed laga nadiifiyo mooyaane
horta galbeed hagaagaya ama dad wax la qaybsanaya ma jirto hargeysana martibaad ku tihiin magaaladii berberana iyo gobolkii saaxilna dee maalinta ka dambaysa sida la idin sarrifanayo in caaqil yar oo idin sarrifanayo dad aan hankoodaba gaadhsiisaneen sandalad miyaad aragtay oo yacni boqolaal kun oo population kor u dhaafaya haddana hankeedaba aan sandalad gaadhsiisanayn marka wax la asmacayo ma aha magaalada berbera dee laydinkaga itaal roonaa horta khilaaf daradiina iyo de wax laydinku dhacayba imika dhicitaanka oo kale aadan taarjiid iyo inan samsam la yidhaahdo kale dee kuraastoodii si badheera baa loo boobay cid allaaliyo cid u hadlaysa iyo cid allaaliyo cid garab taaganna ma jirto dee afartan batorinayaana iyagun baa naaxnaaxaya marka waxaan leenahay marka horeba galbeed suldaan muu lahayn cuqaal yar run baa dhex xariraysay mid baa jiif caaqil u ah inta kale waa cuqaal hoose waxaas ma nagu filna waxaasna ma loo baahna hadda wixii laga bilaabo waxaa loo baahan yahay 2 sandaladood inay yeelato galbeedku inuu 2 sandaladood yeesho inuu 2 sandaladood yeeshaabaa loo baahan yahay sandaladu way ka awood badan tahay waana ka magac dhowris badan tahay cuqaasha waa dhuuni raac inta badan suldaanku laakiin magacuu dhowraa imika aad arkaysa salaadiinta barigu dee dhuuni ma raacaane magacay dhowraan waa kuwa dadkoodii midaynaya wax u taraya laakiin se caaqil haddaad maqasho waa iska dhuuni raac iyo wax jeebad geli kara laakiin sandaladu jeebad ma gasho haddaba waxaan idin leeyahay dhalinyarta galbeedka iyaga looga baahan yahay inay cudud muujiyaan inay cagaa dhulka ku garaacaan in ay muujiyaan in ay xisbi mucaarada ku biiri karaan kulmiye dantoodii way ka dhex waayeen labadii qof ee galbeed oo dhan ugu codka badnaa waa aadan taarjiir iyo samsam inantii loo odhanayay labadaaba si badheedh ah ay kulmiye iyagoo iska soo sharaxay buu kulmiye si badheedh ah codkoodii u qaatay kulmiye si badheedh uu indhaha u qabtay codkoodii u qaatay hadda ma garatay muraaqibiinta soo wareejiyay inta la yidhi keena xisbiga markaa wax halaale waxay ku doodaan iyo wax halaale waxay ku hadlaan maanta ma haystaan yarka iska soo sharaxaya u wardaya maayarnimana aanu ma garanayo sidoo ku soo baxayo ilaahay subhanahu wa ta'ala soo saaray laakiin sidoo ku soo bixiba ma garanayo garab la'aan ba jirta marka waxaan leeyahay yar kan kabaqaadka ah ee dalaalka iyo malaalka meedhan ah ee kani kow uu ka yahay waa in meesha laga nadiifiyaa waa in dhalinyartu iyadu si gaara u tashataa insha allahu tacaala waxaanu samayn doonaa madal dhalinyarta iyo haweenku ay ku tashadaan iyagu aayahooda ay kaga tashadaan oo xor ah oo aan siyaasina dabada ku haynin oo aan dhuuni raac iyo hunguri raac iyo wax lagu dawarsado dadku aanay noqonin war dadka deegaanka galbeedka ka soo jeeda xeebtoo dhan bay haraad u wada baktiyayaan war dadkii waxay wada degan yihiin qarfay wada degan yihiin oo waxaan koori aanay aqoon haysan oonay tacliin haysan oonay horumar haysan oonay wax laali waxay haystaan jirin yacni kuwii lahaa waxbaanu matalaynaaye sandaladnimo intii gaadhi waayeen ama hankooduba siin waayey lan cid ka hortaagna ma jirte hankoodu siin waayey caaqilnimo inta doortaan madaxtooyada dul fadhiyaan hadba madaxweyne yimaadee wasiirka yar loo magacaabay suldaan kaasaa u suldaana kaasaa u boqora kaabay ku daba tukadaan kaabay ilaashadaan waxay ka soo qaataan iyagun baa cuna bulshadana wax laaliyo waxay ku soo celiyaan ma jirto haddaba waxaan leeyahay gruubadan yaryar ee dadka lagu ootay kow horta gruubadan yaryar dadka lagu ootay waa la iskaga daba imanayaa gruub caadi oo xor ah oo dhalinyarta iyo haweenka galbeed oo dhan ka soo jeeda aan qabiil lahayn galbeed oo dhan ka soo jeeda madal ay ku tashadaan oo aayahooda kaga tashadaan iyagaana loo baahan yahay inay sandalad samaystaan adeero cuqaal sandalad inoo samayn mayso niman dhuuni raacina sandalad inoo samayn maayaan barina 2 suldaan yeelan mayso galbeedna caaqil ku qanci mayso absolutely waxaas caqli maaha maalintaas horta caqligeena lagu kaajeeba maalinta caynka la oranayay ayaa caqligeena lagu kaajay maantana dee magaaladii berbera horta Allahu a'lam garan mayno laakiin sida kulmiye hadii uu sidaas sameeyay isagu uu sidaa gartay
inuu magaaladii berberada ka dareeriyo galbeedka barigana ku naaxnaaxiyo taas micnaheedu waxay noqonaysaa dad kulmiye keligii uma sharaxno wadanka halka xisbiye kaliyaate ma aha shuuciga ah de adeero xisbiyadan kale dimuqraadiga baanu ku biiri doonaa iyagaanu cududda iyo xoogga aanu ku biirin doonaa iyo hiil iyo hooyo dhaqaalaba ku biirin doonaa markaanu soo baxnana marka xisbiga aanu awood ku soo saarnana de markaasaanu magaalada ka talan doonaa taasi waa choice way waxaasoo dhanna waxa lagu gaari karaa in dhalinyartu ay shirto dhalinyartu ay samaysato madalo iyagu ay ku wada hadlaan madalo iyagu ay ku kala talo iyo tusaale qaataan waa inaan wax laynoo yeedhin waa la dhaafay casrigii dadka wax loo yeedhinayay sida buumku intoo dhegtaa wax lagaga akhriyo deetana iska asmacayeen iska dhaqaaqayeen ma jirto soddon jirro meedhan bay nahay kow dimuqraadiyad baynu ku soo barbaarnay marka wax intoo qof yaroo kabaqaadi uu halkaas soo fadhiisto deetana wuxuu doono uu dadka ka dhaadhiciyo wax la aqbali karaya maaha markaa waxaan leeyahay maanta anu in badan ma sii hadli karaya maanta waxaan ku soo gebagabeynayaa galbeed sandalad bay u baahan tahay laba sandaladood baanay u baahan tahay hal sandalad maaha laba sandaladood ama saddex sandaladood bay u baahan tahay waana inay dhacdaa galbeed cod midaysan bay u baahan tahay oo cududeeda kulmiyaha hadday ku qaday wax ku weydo annagu Soomaaliland kama yaacayno nihin sida dadka Soomaaliland ka cararaya caynkan annagu Soomaaliland annaga iska leh laakiin se kulmiyaha hadduu wax noo qaban waayay dee waxa qasaba inaanu anagu tashanno ayaga ka tashanno dhalinyarta iyo haweenka waxaan ugu bishaareynaya ilaa hadda dadaalo badan baa socda oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ka socda dhalinyarta iyo haweenku ay doonayaan in ay ka hoos baxaan caada qaatanimadan iyo hanyaraantan ay ku hayaan cuqaash hanyaraantan ay dadkan aan hankoodaba gaadhsiisanayn gebigoodaba cuqaal miidhan iyo jiif caaqil iyo waxaan ku qanacsan inay ka hoos baxaan cududooda ku mideeyaan wadan dimuqraadiya baynu joognaa iyo codkeenna iyo cududeenna iyo dhaqaalaheenna iyo codkeenna hadba halku gaadho ayaynu wax ku helaynaa laakiin saa haddaynu isla huursanaano isla aamusno wax alaalay waxaynu ku helaynaa ma jirto anigu mubaarig ahaan hadda dalkii ma joogo anigu qurbaan ku dhaqanahay carruurtaydu qurbay ii joogaan waan iska aamusi karaa laakiinse waxaanan u aamusaynin dee adeero magaaladan diigga ka ahaa anigoo martiyo ma ku soo noqonayo inaan Somalilandba ka dhaarto aan faraha ka qaado weligiiba macaawadkayga aan ku dhaado ordo European batino European dacal ka gala ama magaaladii aan diigga ka ahaa sidii aan diigga uga ahayn carruurtayduna diig ka noqdaan inay carruurtayduna ka noqdaan magaalo ay leeyihiin si aanu inan yaro tuulo ka soo hangagaaray aanu magaaladooda ugu talinin aanu inan yaro tuulo ka soo hangagaaray oo hadda miil laga keenay hadda doorashadan iyo wixii ka dambaysa la doonayay in lagu deegaameeyo magaalada in aanu u talinin anigoo ubadkayga mana dhici doonto intaan cod leeyahay hadli karayo caqli leeyahay ma dhici doonto waxaan leeyahay haddaba dhalinyarta galbeed iyagoo qabiil iyo wax kale toona eegin cod midaysan waa inay yeeshaan dhalinyarta iyo haweenka madal midaysanna hadda dadaalkeedanu ku jirnaa madal midaysanna waynu samaynaynaa oo siyaasad ka xor ah oo dilaal iyo fataal iyo malaalna ka xor ah dabadhilif iyo kabaqaad no dad xor ah baa loo baahan yahay oo qadiyadda dadkooda u hadlaya oo deegaankooda horumarinaya oo deegaankooda wax u qabanaya oo deegaankooda iyo bulshadooda u doodaya codkooda inta aan hadli karin codkooda gaadhsiinaya meel dheer iyo dhawaqooda waxaan se ka digayaa war yaanaan ku kaliyeysan anigu yaanaan ku kaliyeysan ee ka hadla oo ama bos soo qora ama video kaga hadla ama barnaamijka kaga hadla oo waa inaydun ka hadashaan dhiirigelinta dhalinyarta galbeedka iyo haweenka la siinayo in ay midoobaan iyagu aayahooda ka tashadaan weliba inta qurbaha joogtaa fursadda haysataa inta dalkii joogtaa guumaysi bay ku jiraan mid loogu hanjabo in shaqo yar laga arayayo mid loogu hanjabo in yacni sidii la doono laga yeelayo mid loogu hanjabo xadhig inta dalkii joogtaa inta ugu badan ma haystaan wax xorriyada inta qurbaha joogtaa xorriyad haysataa
dhawaqeennu halku ku dhaco cududeennu sidii u midowdo ayuun baanaynu wax ku helaynaa haddii aynu maanta ku marmarsoonnay odayaal baana dagay caadaqaatayaal noqday han yar oo hankooduba aanu meel dheer gaadhsiisanayn jiif caaqil iyo cuqaal yar iyo waxa gabigoodba hankoodu yahay kuwaasaana dagay haddii maanta aynu leenahay haddaba waa inaynu inagu midownaa haddaba waa inaynu inagu caqliga ka midownaa waa inaynu fikirka iyo aragtida ka midownaa maanta berbera haddii lagaa soo saaro madacarburq iyo lafuruug baad sii deganaanaysaa ma isleedahay taa haddama garatay wallaahi bilaahi saad u socota intaad hargeysa gasho hargeysana in lagaa soo calinay war yaare waxaan idin sheegayaa war meesha laga kaco inamadan yaryar ee qalaxda aad moodo inay dadka u tumayaan sida xoolahana ha la iska ilaaliyo ha laga foojignaado yaanan ku kaliyeysanin waxaan u baahanahay cudud midaysan oo iyo cod dheer oo igarab istaaga oo codka dadkaa la dulmiyey ee loo heshiiyey kulmiye iyo cuqaal yarre ay u heshiiyeen codkooda maatidaa cid dadka gaadhsiisaa loo baahan yahay cid dadkaa midaysaabaa loo baahan yahay aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu